Awdheegle waa degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Degmadan oo in muddo ay ka arriminayeen xarakada Al-Shabaab waxaa dhawaan la wareegay ciidanka dawladda. Waxaana iminka dadka ku nool Awdheegle oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato kormeer ugu tagay xildhibaan Nuur Siidow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya lagana soo doorto deegaanadan iyo xubno ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo soo kormeeray qaybaha kala gedisan ee magaalada. Waxaana mas'uuliyiintan ay kulamo la qaateen qaar ka mid ah waxgaradka magaalada oo ay iska xog wareysteen baahiyaha iminka haysta bulshada ku nool Awdheegle iyo nawaaxigeeda. kormeerka kadib waxaa saxaafadda la hadlay saraakiisha ciidanka xubnaha mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo xildhibaan Nuur Siidow oo ballan qaaday in dawladda ay wax ka qabanayso tabashooyinka shacabka iyo baahiyaha gaarka ah ee iminka ka jira halkan. maamulka gobolka xildhibaankeena maadaama maleeshiyaadkii in badan kontroolaya degmadan Awdheegle ah kala wareegnay maantana soo booqdeen maamulkii gobolka oo dhan iyo xildhibaanadii deegaanka waxaa ku soo dhaweynayaa maamulka gobolka oo ugu horeeyo gudoomiyaha arrimaha bulshada xildhibaan jacalno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo kan degmada kan bulshadaba inuu mar walba ka warhaayo iyo horumarka bulshada wax ka shaqeeyo saas si lamid ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed suurta geliyay inaan meeshaan si nabadgelyo aan ku soo gaarno horena maamulka gobolka u yimid iyo xildhibaanada inta u yimaadeen haddana anaga mar labaad nimid saas lamada maamulka degmada iyo hay'adaha amniga iyo bulshada Awdheegle sida ay iskula shaqeynayaan iskugu xiran yihiin waa uga mahad celinaynaa saraakiisha run ahaantii beledkaas oo dhaxmarnay bulshadu waxay noo muujiyeen wada shaqeynta hay'adaha amniga ay leeyihiin waxay dareemeen dawladnimay dareemeen dadka reer Awdheegle saas anaguna u soo gaarnay aan ku sii dhiirigelino in Awdheegle dibna ma looga laabo doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin inay haddana xoreeyaan deegaanada ku dhagan oo dhibaatadii meeshaan laga dul qaaday wili ay dul saaran tahay madaasna maamulka gobolkuna isoo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama mar walba diyaar ah oo la howl galana diyaar baa u nahay inaan hor soconno si ummadayna looga dul qaado nimanka nabadiidka ah mudana xildhibaane iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolkaba iyo saraakiisha oo taliyihii ururka iyo taliyihii guutada intaba ay fadda maaragtay malable maaragtay buundada kala qaybiso ayaan taagannahay waxaa maanta safarkeena nagu heliya oo qayb lixaad leh ka qaadanaya xildhibaan ka soo jeeda maaragtay magaalada Awdheegle xildhibaan Nuur Siidow baaba oo run ahaantii aan aad ugu mahad celinayno sida qiimaha badan ee bulshadiisa ula qaybsanayo maaragtay xaaladaha kala duwan ay ku sugan yihiin ayadoo magaalada Awdheegle wax ka yar bil lahayo in maaragtay yimaado waxaan kaloo ka warhaynay maaragtay deegaanka Bariire sidoo kale inuu u yimid oo qayb libaax leh ka qaadanayay maaragtay xaaladaha iyo maaragtay barnaamijyada ka jira sidoo kale waxaan maaragtay mahad aan la ilaabi karin u jeedinayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishooda iyo maaragtay qaybahooda kala duwan ee ciidamada oo run ahaantii sabab u ahaa maanta inaan halkaan taagnaano horeyna u imaano magaalooyin kale iyo deegaano kale oo maaragtay aan rajaynayno sidaan oo kale inay noo geeyaan ay jiraan waxaan kaloo maaragtay aanan ka reebeen ciidamada AMISOM Uganda oo run ahaantii ayagana qayb weyn ka qaatay maaragtay difaacidda iyo maaragtay dib maaragtay u qabashada deegaanada naga maqan ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaan leenahay maaragtay dhammaan bahda saxaafadda iyo kulli shacabka waxaan u baaqaynaa in wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kulli qaybaha kala duwan ee deegaankan ay caan ku tahay oo ah deegaan kheyraad badan uu Ilaahay siiyay inay ka qayb qaataan waxaa kaloo ka maaragtay ugu baaqayaa maaragtay bulshada deegaanka ku dhaqan sida haddaba ugu qayb qaadanayaan maaragtay sugidda amniga inay maaragtay sii wadaan ay ka qayb qaataan oo hadduu Ilaahay raalli ka noqdo sida hadda tahay si ka wanaagsan insha Allah aynu gaarsiin doono waxaa kaloo maaragtay ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed khaasatan deegaanadan maaragtay Awdheegle iyo deegaanada hoos yimaada maaragtay qurba joogta ka soo jeeda waxaan leenahay deegaanadii waa la qabtay dhulkii beerihii maalgashada dhulkiina imaada deegaanadiina imaada haddii ganacsi tahay haddii wax soo saarka beeraha nabadiidka ah in laga adkaan karo meel walbo ay joogaanna lagu ugaarsan karo waxaa sharaf weyn ii ah maantay inaan soo booqdo degmada Awdheegle khaasatan deegaanka Malable halkan aan taagannahay waa buundada degmada Awdheegle Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh oo runtii suura geliyay inaan halkaan imaado waxaan ugu mahadinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 14 Oktoobar oo uu hogaaminayo taliyaha Cali Aadan runtii sharaf weyn ay ii tahay maantay inaan
in la igu soo dhoweeyo deegaankayga aan soo booqdo dadkayga waxaa maantay indhahaygu ay qabteen oo aniga aan arkay dadka ku dhaqan degmada Awdheegle inay yihiin dad jecel dawladnimo ayna ka go'an tahay inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waxa ay soo gaartay ifafaalooyin ah in loo geystay handadaad badan inay ka barakacaan guryahooda ay ka cararaan guryahooda xoolahooda iyo beerahoodaba laakiin way ka dhaga adeegeen way ku amaanan yihiin sida geesinimada leh ay u garab istaageen ciidamada walaalahooda ah ayna ula shaqeeyeen waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo runtii ahmiyad weyn iska siiyay in laga xureeyo cadawga dhiigmiiradka ah ee al-shabaab iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo runtii muujiyay istiraatiijiyad ah in laga xureyn karo deegaanadan aan la haysan karin ummadana aan maskaxda laga gumaysan karin waxaan rabaa inaan u cadeeyo ummadda Soomaaliyeed inaan haysano ciidan la isku haleyn karo laguna aamini karo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed waxa sharaf weyn ii ah mar labaad iyo mar saddexaad inaan imaado deegaankaygii degmada Awdheegle tira 4 jeerna aan ku imaado safar dhulka ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ugu mahadinayaa oo runtii igu badbaadiyay khatar walba oo cadawga ay maleegeen aan nabad ku imid nabadna ku noqdo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan kala warqaadan doono safarkeena maanta wuxuu ahaa safar nabad aan ku nimid ayna noo suurageliyeen walaalaheena Cabdiwali Ali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose Awdheegle